أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaynu ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyey bisha Shacbaan waxa foodo inagu soo haysa bishii barakaysnayd Ramadaan hadaba waxaan rabaa inaan u diyaar garowno bishaas uguna diyaar garowno xagga jadwalka iyo xagga nafsiyan yani soo dhaweynta iyo ku farxitaanka bishaas iyo go'aano qaadasho ah jadwalkeena bisha Ramadaan inaan aad iyo aad uga faa'iideysano marka waxaan idin akhrinayaa munaasabadan oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam khudba uu akhriyay asxaabta wa asxaabtu ay leeyihiin khadabana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam fi aakhir yawm min shacbaan nabiga ayaa khudba noo akhriyay maalintii u dambeysay ee shacbaanka yani wuxuu u diyaarinayaa bisha ramadaan inay ka faa'iideystaan markaas faqaala nabigu wuxuu yiri yaa ayuha naasu qad adallakum shahrun cadiimun mubaarak dad yahow waxaa hooskiisii idin hayaa waxaa idinku soo dhawaaday bil weyn nabigu wuxuu ka cabiray shahrun cadiim bil weyn mubaarakun oo barakaysan shahrun fiihi leylatun khayru min alfi shahr waa bil ay ku dhex jirto hal habeen oo ka khayr badan 1000 bilood oo haddii sanad loo bedelo ay noqonayso 83 sano iyo 4 bilood yani hal habeen oo bisha ramadaan ku dhex jirta oo laylatul qadar la yiraahdo qofkii asoo cibaadeysanaya ilaahay uu waafajiyo fursadaas ka faa'iideysta ajirka uu helayo sida uu laban laaban yahay ama uu tira badan yahay wuxuu ka badan yahay maalmaha kale ee caadiga ah 83 sano iyo 4 bilood ajir uu shaqaysan lahaa inuu halkaas habeen uu ku helayo ayuu nabigu tilmaamay waxa ku jira habeenkaas marka in laga faa'iideysto si looga faa'iideysto marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay oo uu yiri ja'ala Allahu siyamahu fariida ilaahay wuxuu ka dhigay maalinta ramadaanka ah in la soomo wa qiyaama laylihi tadawucan habeenkiina in la istaago oo salaad la tukado ama quraan la akhristo ama la wardiyo ama yani wax khayr ah lagu soo jeedo ilaahay wuxuu ka dhigay tadawuc sama falasho ama si sunna ayuu ka dhigay man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhayr kana kaman adda fariidatan fima siwah qofkii arin sunna ah bisha ramadaan dhexdeeda ku sameeya waxa uu la mid yahay sunnadaas uu sameeyay sidii asaga oo faral oo bilihii kala ah asoo gutay ayay la mid tahay macnaha sunnada oo ramadaanka dhexdiisa la sameeyo yaa ajirka waxaa lagala mid dhigayaa bilihii kale salaadaha waajibka ee la tukado ajirkii laga heli jiray oo kale ayaa sunnada ramadaanka dhexdeeda ah ayaa laga helayaa marka sunnadiiba waxay isu bedelaysaa ajirkii faralka oo kale ee bilihii kale ah waa fursad in laga faa'iideystay tahay faralkiina soo noqonayaan haddii sunnadii saas ay noqotay faralka ama waajibka bisha ramadaan lagu dhex sameeyana wuxuu la mid yahay qofkii faral ku dhex guta kaman addaa 70 fariidatan fima siwah 70 salaadood oo kale 70 faral oo kale qof gutay ayuu la mid yahay macnaha halkii duhur ee ramadaan ku dhex jira qofka markuu tukado wuxuu la mid yahay sidii asagoo 70 duhur oo kale tukaday waana hal duhur oo kaliya oo bisha ramadaan dhexdeeda uu ku tukaday wuxuu la mid yahay sidii asagoo 70 kale tukaday salaad subax haduu tukado 70 salaad subax cisha haduu tukado sidaas ayaa marka ajir iyo xasanaad iyo fadli ugu helaya waxyaabaha bisha ramadaan ay la gaarka tahay waxa kamid ah yani sabr weyn ayaa ku jira waa shahru sabr ayaa leeyahay oo saddexdii sabr ama saddexdii nooc ee sabirkaba yani bisha ramadaan waa laga helayaa sabirku saddexdiisu waxay ahayd daacada oo lagu sabro macsiyada oo laga sabro imtixaanka iyo balaayada adduunyada oo lagu sabro saddexdiiba waxay isku jiraan ramadaanka oo mesela markii la sooman yahay yani shahwadii qofku ka sabraya dhibaatada gaajada ee ku imaanaysa uu ku sabraya yani sabirkii noocyadiisii oo dhan ayuu xaqiijinaya daacadii iyo xumaatadii uu ka sabro iyo imtixaankii oo gaajada ah oo uu ku sabrayo marka waa bil sidaas ah fadaishiis waxaa kamid ah qofkii afuriya qof sooman bisha ramadaan qofkaas ilaahay dembigiisa wuu dhaafaya ajirkiisana wuxuu la siinayaa qofkan uu afuriyey ajirkiisa in la ego kale asagoo aan laga nusqaaminayn waxaan rasuulka ilaahay kulli ma wada heli karno inaan wax ku afurinaya markaas wuxuu ku yiri qofkii ku afuriyo qof xabad timir ah ama kabasho biyo ah ama wax yar oo caano ah iyo ilaahay ajirkaas uu siinaya marka bishaas ayay nagu soo foolle inaan ka faa'iideysanana aad iyo aad ayay muhiim u tahay waa bishaas ramadaanka oo ajirka badan leh marka isticdaadka iyo diyaar garowga ayaan kelimadeenan maanta ayaan ugu talagalnay si dadku ay isu diyaariyaan xagga nafsiga midda kale ee ku saabsan axkaamta soonka
iyo xalaqaad in bisha ramadaan inta lagu jiro ummadda meel kastoo ay joogto ay ka faa'iidaystaanna insha allahu tacaala waan idinla soo wadaagi doonaa waxyaabaha aad xiisaynaysaan oo qisas yani qur'aanka ku jirta iyo taariikhdii asxaabta iyo haddii aan wixii aan ka soo qaadan karno ayagana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan idiin soo gelin doono hadda laakiin darsigeenu wuxuu noqonayaa inaan xadiiskaas qaadanay oo dadku meel walba ay joogaan in bishii ramadaan ay fooda inagu soo hayso oo loo diyaar garoobay in la mudan tahayna inaan isku baraarujino ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa xaaladan aynu ku sugannahay sanadkan oo ramadaankan uu ka duwan yahay ramadaanadii hore oo kale oo ramadaanadii hore caalamka oo isu wada furan inagu soo geli jiray maantana caalamkii oo kala xiran cudurkaasi corona la yidhaahdo oo wadankii uu ka jiro dibaddana uu ka jiro dad badan oo dadka maalan kaalmayn jirayna oo dibadahaas joogana maanta ay guryo ku xaraysan yihiin oo nafsadoodii caafimaadkooda ay ilaashanayaan isbedelada saas oo kale ee dhaqaalaha ay keeni doontana bisha ramadaan oo u baahan in la isgaraqato oo la is afuriyana bal in laga tashado oo qof walba meesha uu joogo iyo dadkii uu xiriir kala lahaa sidii la isu kaalmayn lahaana ayadan laga fikiro waa bil keli ah oo bilaha kaleo lasoo dhaafay oo dhan ka fadli badan waa fursad jadwalka marka qofku inuu ku darsado inuu saacad iyo daqiiqad iyo bishaas gudaheeda wixii wakti oo dhan inuu khayr ka kasbado dembiga iska daayo uu noqdo bil fursad loo siiyey inuu wax badaan hortiisa uu geysto accounkiisa aakhir inuu buuxsado waa bishii laga faa'iidaysan lahay marka ilahi subxana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inoogu beliyo bishaasi si khayr leh dhibaatadan adduunka daashatayna bisha ramadaan iyo khayraadka ummaddu ay ku dhex samaynayso arrimahaas ilahay inoogaga fuudeeyo saas ayaan idin rajaynaynaa sanad wanaagsan kula caam wa antum bikhayr ramadaan kariim taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين اللهم يا من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره نحن في جوارك فاجرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم حقق آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني